كنت هاي جعلك يرغب صيفتي وإن صعب علي أني قوانو يدي لايو الله أنكبر إلايو عدان سمروران لها kani magaciisu waa maxamed cabdi siciid biike waxa uu ahaa boqor codeed oo adag tahay in mar kale la helo waxa uu codkiisa dareen kale ku hantay kumanaan taageerayaala oo kala duwan misana ku kala nool dunida dacaladeeda waxaan ku xasuusiya nooc ka mid a codkiisii dareenka lahaa maxamed cabdi siciid biike ila dhegeyso أبي هاي عالوان نقون نصيب كان هاو عرون حدو علفك عشدي دو ويتك إلو ويتك دو ويتك إلو كعوغو وحان كوكو إدي كعوغو Gayanka alma banku ere Sidaad qalbiganku ere maroon cilbax banku ere maroon cilbax banku ere ma aqaanin mana sahubo inay tahay markii koobaad ee aad maqashay codka dareenka leh ee fanaan hore maxamed cabdi siciid maxamed biike waxa uu intii uu fanka ku jiray uu la baxay isla markaasina fanka dhexdiisa uu kula baxay magacyo kala duwan ay ka mid ahaayeen hanti qaran iyo qaar kale oo badan badh ayaa ugu yeedhi jiray taageerayaashiisa kabtankii codka ee kooxda xidigaha geeska biike waxa uu qaaday heese kala duwan oo isugu jira wadani jacayl iyo weliba kuwo kale oo dhexdhexaada tan iyo markii uu soo dhex galay saaxada fanka waxa uu codkiisa dibaaxda leh ku urursaday malaayiin mucaashiqiin taageero u ah si kastaba ha ahaatee biike waxa uu mar qura ka dhex baxay oo uu ka xuubsiibtay dhammaanba fankii uu ku jiray kumanaan iyo kumanaan ka mida taageerayaal aada u tiro badan ayaa ka cadhooday ka bixitaankiisii fanka badh kalena waa ay soo dhoweeyeen arrintaasi maxamed ayaa markii uu fanka ka baxay waxaa soo dhoweeyey bahda culimada oo uu xaggooda u ciirsaday wixii intaasi ka dambeeyey waxa uu maxamed biike oo ahaa magicii fanka looga yaqaanay ay ugu bedeleen maxamed mubaarak